Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka socdaalka dunida iyo muuqaal cusub. Muuqaalkani aan ku baran doono ninka la yiraahdo Doorshaan. Taariikh nololeedka Doorshaan ayaa ah taariikh nololeed ay ka buuxaan guulo iyo nasiib fara badan. Haddaba aynu gudaha u galno taariikh nololeedka Doorshaan. Doorshaan waxa uu ku dhashay miyiga fog ee in badan ka fog magaalada, wuxuuna ku barbaaray isla miyiga baadiyaha ah. Markii uu weynaaday ayuu imaaday magaalada. Doorshaan ayaa soo galay masaajid ku yaala magaalada. Dadkii masaajidka joogay ayaa u doortay Doorshaan inuu tujiyo. Doorshaanna ma uusan ahayn qof yaqaano salaada iyo qur-aankaba. Doorshaan kadib markuu dadkii u hormaray, dadkii dhanna ay ka daba fayleen ka sugayaan inuu tujiyo, ayuu Doorshaan orod jabsaday. Dadkii ka daba feelsanaa Doorshaan ayaa iyana sidoo kale orod jabsaday oo is yiri waxa uu ka orday imaamka u joogis malahane, adinkuna carara. Waxaana burburay masaajidka uu ka samaysnaa cooshado iyo olol isku geeyey. Kadib markii laga daba tegay Doorshaan ee la weydiiyey sababta uu la cararay ee orodka uu la bilaabay, ayuu yiri waxaan hore u ogaa in dhismuhu dumi doono. Hadda waa dhismihii ee ayaga dumiyeen. Dadkii masaajidka ku tukanayay ee Doorshaan ka daba feelayay ayaa u qaatay Doorshaan inuu yahay nin qadarta wax ka og ama wax soo socdo wax ka og. Subxaanallah. Haddaba waxay go'aansadeen in loo geeyo boqorkii magaalada ka talinayay. Intii loo sii socday boqorka ayaa Doorshaan wuxuu dhaxda ku sii arkay lo cunaysa bac wax ku jireen. Bacdaana waxaa ku sii jiray faraanti. Kadib markii loo geeyey Doorshaan, boqorkii ayaa wuxuu yiri haddii uu ninkani wax badan og yahay, waxaa iga maqan faraanti. Haddaba waxaa laga doonayaa halka uu jiro faraantiga iga maqan. Doorshaan ayaa madaxa warwareejiyey, kadibna yiri waxaan u baahanahay in la ii keeno wixii lo ee jooga magaalada oo dhan. Kadib markii la isku keenay wixii lo joogay magaalada, ayaa Doorshaan wuxuu marba lo taabto ayaa wuxuu doortay lo'dii oo hore ugu soo arkay inay cunaysay faraantiga. Okay. Kadib waxaa dhacday in la qalay saci. Haddaba waxaa la arkay faraantigii oo ku dhex jira caloosha saci. Hal mar ayaa meesha waxaa ka dhacay yaab iyo ama kaag. Si guudna waa loogu wada sabciyey Doorshaan. Haddaba boqorkii oo yaaban ayaa yiri waxaa loo baahan yahay Doorshaan in la barbar dhigaa saaxiriinta ugu waaweyn ee magaalada joogto. Waxaana loo sameeyey kulan dhexmara saaxiriinta iyo Doorshaan. Haddaba waxaa la wada ballamay hal maalin in la sameeyo kulanka. Doorshaan ayaa oggolaaday, dhanka kalena saaxiriintii way oggolaadeen. Okay. Haddaba maalinkii lagu ballansanaa habeenkeeda ayaa saaxiriintii waxay go'aamiyeen in Doorshaan habeenkaa lasoo xaqiijiyo gurigiisa waxa ka dhacayo. Doorshaan inta uusan seexan ka hor ayuu xaaskiisa ku yiri Sharafeey, waad og tahay anigu inaanan waxba ahayn ee intani uu isoo gaarsiiyey nasiibkayga. Haddaba waxaan kaa doonayaa inaad muufo ii kariso, sidoo kalena adduunka koowaad aad i kiciso. Haddaba saaxiriintii oo ku ballansanaa inay aadaan xaafadda Doorshaanka ayaa hal qof ku soo dirsaday xaafaddii Doorshaan. Kadib markii uu soo istaagay deerka Doorshaan ayaa xaaskii ku tiri Doorshaan, waryaaye warkac. Waxaa yimid kii koowaad. Waa kii koowaade kac, warkac waa kii koowaade. Ninkii saaxirka ahaa ee banaanka taagnaa ayaa yaabay, deedna cararay kuna laabtay saaxiriintii. Wuxuuna ku yiri war waa yaab, war waa makaag. Arrintu waxaan malaynayay inuu ninka kaliya yahay, balse xaaskuba way taqaanaa waxyaabaha soo socda. Subxaanallah.
doorshaan ayaa ku kici waayey warkii loo sheegay. haddaba saaxiriintii ma aynan quusane waxay soo dirsadeen nin kale. kadib markii uu yimid doorshaanna uu hurdada ka kicin ayaa xaaskiisii ku tiri, warkac waa kii labaade kac. iyo waxaa isku aaday ninkii uu deerka taagnaa. kadibna inta cararay ama kaagay ayaa wuxuu yidhi, ninkii ugu horeeyey wuxuu yidhi, waa sax, naagtu ayadaba ma ka yaraysata ninka. raggii saaxiriinta ee badnaa ayaa ku quusa waayey labada nin warkooda, waxayna soo direen mid kale oo saddexaad. haddaba doorshaan oo ahaa qof aad u hurdo weynaa ayaa ku kici waayey kicinta xaaskiisa. raggii saaxiriinta ahaa ayaa iyana dhaggooda soo dirsaday mid kale saddexaad. kadib markii uu soo istaagay deerka ayaa xaaskiisii tiri, war waa kii u dambeeyey kac, war kac. yaanan idinka iloobine waxa waa kii u dambeeyey ee leedahay waa aqimka masaajidka ay maqashay, balse ma aha ninka bannaanka taagan ma saadaalinayso. waxaa iskugu aaday waa nasiibka. haddaba doorshaan ayaa hadalka ku kacay. ninkiina inta yaabayo ama kaagay ayuu ku laabtay dadkiisii kuna yidhi, war niman yahow, waxaan raggii iigu horeeyey ee soo arkeen waa saxow, waa wax jira. naagtu maaha naag ka yaraysato ninka. haddaba doorshaanki ayaa sidaa ku kacay. kadibna waagii ku dilaacay, magaalkiina la soo galay. waxa la gaaray wakhtigii ballanka. doorshaan awalba ma uusan ahayn qof maskax badane, asigoo habow ah ee aanan u socon jihadii laisaga ballansanaa ayaa waxaa soo celiyey rag ka mid ahaa raggii saaxiriinta, kuna yidhi, warniyow halkaad u socotaa? war waataa ballansaneene, soo bax meesha barxadda ee iskeen. sidii ayaa lagu soo celiyey doorshaan. waxaa lasoo wada istaagay masraxii. raggii oo awalba kun shaki qabay ayaa saaxirkii ugu weynaa wuxuu yidhi, tani ma ahan kulanti weyn, waxaan ku soo gebagabay karnaa hal qiyaas. waxaan ka baahannahay ninkan inuu sheego waxa gacantiida ku jira. markaa buu doorshaankii yidhi, war doorshaanow, weligaaba galgalatayay, maanta waxaad ku jirtaa gacan libaax. saaxirkii ayaa yaabay, kadibna gacantiisa ka soo tuuray doorshaankii, yidhi, warkani ma ahan wax caadiya, gacantayda inuu doorshaan ku jiro yaa u sheegay. haddaba doorshaanku uu sheegayo doorshaanku waxa weeye nafsadiisa, ee ma ahan doorshaanka uu ninka gacanta ku hayay. dadkii deegaanka ma aysan u aqoonin magaca doorshaan. waa sheeko cajiiba. nasiibku qofkuu ilaahay waafajiyo ayaa hela. sheekadii doorshaan halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wabilaahi towfiiq. wada socod wanaagsan. halkani waa socdaalka dunida.